الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي هبون داوديا كسو دوادا ورك عن ذي نقود وين هدي آد نقول عصوبتها الجانل كان سبسكرايب صاروا sidoo kale muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtaada qaybta hoose ee commentigana noogu reeb aragtidaada. dawladda Kenya waxa ay dalbatay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo diyaarad ciidamada Itoobiya ay ku soo rideen Berdaale. maxay tahay sababta Kenya arrinkan ay u dalbanayso? waan idin soo gudbin doonaa. ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu amray in si degdeg ah loo ballaariyo xarumaha lagu baaro cudurka coronavirus dadka uu soo ritay. wasiir Cabdullaahi Goodax Barre qaramada midoobay ayuu kala hadlay saameynta cudurkan. waxa kale oo qayb ka noqonaya barnaamijkan aan kugu soo gudbin doonaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir war culus ayuu soo saaray. maamulka Puntland waxay sheegeen in dadkii ugu badnaa uu soo ritay cudurka coronavirus. sidoo kale waxa qayb ka noqonaya barnaamijkan aad ku daawan doontaana haddii eeba uu raalli ka aado maxay tahay sababta ay dawladda federaalka ee Soomaaliya uga gaabsanayso arrimaha la xiriira diyaaradda Itoobiya ay soo riday ee Juba Airways. Ibi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo diyaaraddaasi lahaa war ayuu soo saaray. waxa uu sheegay in muuqaalo ay hayaan arrinkaasi muujinaya. waxa kale oo qayb ka ahanaya barnaamijku aad ku daawan doontaan haddii eeba uu raalli ka ahaado. magaalada Beledweyne xarunta Hiiraan wararkii ugu dambeeyay ayaa laga helayaa fatahaad ayaana laga cabsi qaba. qodobadaas ayaa daawan doontaan haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato channelkan subscribe saaro asxaabtaada la sii wadaag muuqaalkan. sidoo kale qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtidaada. hagaag aynu ku bilowno. ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay guddiga loo xil saaray arrimaha coronavirus kala hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay ee arrinkan ayaa waxa uu dalbay in si degdeg ah loo ballaariyo xarumaha lagu dabiibo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. waxa uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre guddiga u sheegay inay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan arrinkan la dardargeliyo. guddiga ayaa warbixin siiyay ra'iisul wasaaraha waxa ay sheegeen in hadda xaaladda dadka uu soo ridayo cudurkan coronavirus hadba maalinka ka dambaysa maalinka kale ay sii kordhayso. waxay sheegeen in isbitaal Martini oo kaliya uusan ku filnayn. dhowr jeer oo hore ay guddiga waxa ay sheegeen in xarumaha ay muhiim tahay in la ballaariyo. sidoo kale guddi madax bannaan oo dhaqaatiir ah warbixino kala duwan ay soo saareen maalmo ka hor waxa ay ku dalbeen in ilaa iyo 4 xarun la gaarsiiyo goobaha dadka lagu dabiibo isla markaana looga hubiyo cudurkan coronavirus. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu adkeeyay ama guddiga ku adkeeyay in sida ugu dhaqsiyaha badan ee arrinkan u dardargeliyaan. cudurka coronavirus ayaa waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dalalka caalamka gaar ahaan Soomaaliya waxaana dadkii ugu badnaa ee geeska Afrika uu ku soo ritay magaalada Muqdisho. Puntland ayaa la soo warinayaa in 22 ruux oo kali ah uu ka soo ritay halka Muqdisho dadka uu soo ritay ay gaarayaan 722 ruux. kororka tiradan ayaa waxaa lagu sheegay dadka oo aan qaadan fariimaha wacyigelinta iyo sidoo kale waanada loo jeedinayo. taasna waxay sababtay in cudurkan uu si sahlan uu ku sii baaho. dawladda Kenya waxa ay dalbatay in si degdeg ah baaritaan loogu sameeyo diyaarad shalay casirliqii ciidamada Itoobiya ay RPG ku dhufteen magaalada Berdaale ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidamada Itoobiya ayaa wali arrinkan ka hadlin waxaana diyaaradan ay siday shixnad daawo ah sida uu sheegay xildhibaan Ibi oo diyaaradda iskale. dawladda federaalka ee Soomaaliya wali faahfaahin rasmi ah kama aysan bixin laakiin waxa ay sheegtay in baaritaan degdeg ah lagu sameyn doono. war ka soo baxay wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Kenya muwaadin ayaa uga jiray diyaaradan oo ka mid ah shaqaalaheeda waana sababtay arrinkan uga hadlayso. dawladda Itoobiya ayaa si bareer ah u riday sida la sheegay waxaana hadda bilaaban kara xiisad u dhaxaysa labada dawladood haddii arrinkan laga jawaab celin waayo. diyaaradda waxaa saaraa ilaa iyo 6 qofood. 2 Soomaali ay ahaayeen 4 kalena ajaanib sida uu sheegay milkiilaha diyaaraddaasi xildhibaan Ibi. dawladda Itoobiya ayaa dhowr jeer falal guraan waxa ay ka fulisay Soomaaliya kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la isweydiin sababta ay u fulisay. waxaana ka mid ah dilkii iyo soo qabashadii Muqtaar Roobow. waxa ay dileen ilaaladiisa asigana xabsiga ayay in loo taxaaba ka shaqeeyeen waana arrin ka baxsan xeerarka caalamiga ee ciidamada AMISOM ee Soomaaliya u joogaan. arrimahan oo idil markii la isku duuduubo ayaa waxa soo baxaysa in dawladda Itoobiya ay saameyn togan ku leedahay siyaasadda Soomaaliya.
dhowr jeer oo hore ayaa dowladda hadda jirta lagu eedeeyay in Itoobiya ay u madax laalaadiso inkastoo iyagu ay sheegaan in Itoobiya iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo isqadariyo oo kaliya. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haddii aynu eegno waxaa laga cabsi qabaa in fatahaad xoogan uu sameeyo webiga Shabeelle ee magaaladaasi mara. injineero dhawaan la geeyay oo la doonayay inay la tacaalaan webiga si uusan banaanka biyo u soo dhigin ayaa ilaa ay hadda howlgelin sida aan wararka ku helayno. sababta ugu weyn ayaa waxay tahay waxaa la laayahay qalabkii ay ku howlgelin lahaayeen waxaan lacagtii dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu deeqday la sheegay in la musuqmaasuqay taasna ay sababtay in ay shaqay waayaan injineeradii halkaasi la geeyay. magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan qaybo kamid ah waa laga barakacay sida aan wararka ku helayno waxaan dadku ay maciin bideen meelo buuro ah oo magaalada banaankeeda ah. xaafada dhowr ayaa haawanaya inkastoo qayb kamid ah magaalada ay degan tahay oo aan laga baqdin waqtiga in webigu uu ku fataho. laakiin waxaa qasab ah haddii dhinac kamid ah magaalada biyuhu ay soo gaaraan in gebigeed ay ku wada fidi doonaan. magaalada Beledweyne ayaa waxay u nugushahay in fatahaad xoogan uu ku sameeyo webiga maadaama uu u maro qaab ah isla markaan dhinac walba uu fatihi karayo. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ugu deeqday $500,000 si looga hortago fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne mare. fatahaadda laga cabsi qabo inuu sameeyo webiga Shabeelle waxa sidoo kale ay saameyn doontaa magaalada Mahadaay ee gobolka Shabeelle Dhexe halkaasi oo si aad looga baqanayo in webigu uu ku fataho. hay'ashee Mahadaay waxay kaga duwan tahay Beledweyne waxa ay leedahay dhul baaxad leh oo ay dadku ku baxsan karaan ama ay ku barabixi karaan. magaalada Beledweyne waa magaalo dadkeedu ay aad u badan yihiin isla markaana aad ugu nugul in webigaasi uu ku fataho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa waxa uu shacabka gobolka Banaadir ugu baaqay in si degdeg ah ay u qaataan fariimaha wacyigelinta ee la soo dirayo isla markaana uu la wadaagayo maamulka gobolka Banaadir wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta. Cumar Finish waxa uu sheegay in aan la dhageysan karin cudurkan saameynta xoogan ku yeeshay dunida isla markaana sii xoogeysanayo ee sii faafayo. waxa uu baaqay qof waliba inuu mas'uuliyad iska saaro naftiisa. boqolaal ruux ayuu sheegay inay u geeriyoodeen cudurkan coronavirus iyadoo ilaa iyo hadda ayna jirin cid isweydiisay ama baaritaan ku sameysay. hore ayay dowladda federaalka ee Soomaaliya u sheegtay in qof waliba oo magaalada Muqdisho ku geeriyoodo ay u aqoonsanayso inuu dilo cudurka coronavirus. waxaa warkaasi shaaciyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaana taas ka jawaab celiyay wasaaradda caafimaadka oo ku sheegtay in warka wasiirku uu cilmi ku dhisnayn. Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish hadalkiisan waxa uu imaanayaa iyada oo uu sii baahayo cudurkan coronavirus dadka uu soo ridanayo ayaa waxa ay gaareen 722 ruux waxaana jira dad kale oo guryahooda iska jooga kuwaasi oo aan tagin goobaha baaritaanka iyaga oo ka baqdin qaba in markaasi ay ku sii faafiyaan dadka kale. fariimaha wacyigelinta ee la soo diraya ayuu sheegay haddii la qaato in wax badan ay isbedeli karayaan taasina ay muhiim tahay. wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu qaramada midoobay kala hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa gargaarka la doonayo in Soomaaliya la gaarsiiyo ee la xiriira ka hortagga cudurkan saameynta ku yeeshay dunida ee coronavirus. wasiirku waxa uu uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya halka ay marayso iyo sida wax waliba ay gaabis u galeen kadib markii uu cudurkan coronavirus ku baahay dalka. dadkii ugu badnaa ayuu ka soo ritay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxay tiradu gaaraysaa ku dhawaad 1000 sida uu wasiirku warbixinta ku dhiibay. qaramada midoobay waxa ay ballan qaaday in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wax badan ka caawin doonto sida agab iyo daawo. dowladda Turkiga ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay Muqdisho soo gaarsiinaysay agab isugu jira daawooyin iyo neefsiye kuwaasi oo hadda muhiim u ah dadka Soomaaliyeed waxaana soo dhiibay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. qaramada midoobay dhowr jeer oo hore ayay dowladda Soomaaliya gargaar caafimaad ku wareejisay qaar kamid ah waxaa loo qeybiyay maamulka dalka ka jira sida Puntland, Jubaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle waxaana hadda wali soo baxaya tabashooyin la xiriira in aan xal rasmi ah loo helin cudurkan coronavirus isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaabinayso. dowladda inteeda kale ayaad moodaa inay hadda ka soo kabanayso cudurkan marka loo eego sida uu ku socday dardartii xooganeed ee maalmihii hore uu ku socday. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aad u la dadaalayso cudurkan si uu ugu sii baahin dalka hay'ashee tabarteeda ayaa liidato sida ay qabaan dad badan oo arrimahan ilgooniyo ku eegaya. guud ahaan qiyaari intaas ayaan ku hakinayaa akhbaaraadkii oo aad kala socoteen channelkan
haddii aad nagu cusub tahay mar kale aan ku xusuusiyo subscribe-ku waa muhiim waad ku mahadsantahay daawashadaada qaybta hoose ee commentiga aragtida nagu reeb nabadiin